mas-uuliyiintan oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya ayaa xabsiga ku jira labadii maalin ee la soo dhaafay waxaana mas-uuliyiinta ka mid ah agaasimihii wasaaradda waxbarashada Muuse Faarax Xayd wiil uu dhalay madaxii imtixaanaadka kuwaas oo su'aalo lagu weydiinayo xarunta dambi baarista CID ee magaalada Muqdisho wasiirka adeegga bulshada oo ay hoos timaado wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya Maryan Qaasim Axmed ayaa VOA u xaqiijisay xariga mas'uuliyiintan inkastoo ay sheegtay inaanay u xirneen wasaaradda waxbarashada oo ay u xiran yihiin cadaaladda kadib markii lagu eedeeyay inay musuqmaasuqeen arrimo la xiriira deeqa waxbarasho ee heshay dowladda Soomaaliya si qaldanna ay kaga faa'iideysteen ay wasaaradda xabsi dhigtay ma jirto marka taas ayaan rabaa dadweynaha inaan u saxo annaga waxba ma xirin annaga maamulkeena waa saxayna musuqmaasuq waa la dagaalamayna laakiin ruux aan xabsiga dhignay ma jiro waxaa dhacday dadweyne Soomaaliyeed oo ku andacoonayay ayaga in lacag laga qaatay qaybo wasaaradda ka shaqeeya iyo qaybo kale oo bulshada kamid ah oo wasaaradda ka shaqeynin intay lacag ka qaateen ay ku dhahan caruuran idin dhoofinayna Turkiya dadweynihii yaa cadaaladda approach gareeyay dadweynihii dacwooday marka dadweynihii markay dacwoodeen booliiskii yimid waxa la xiray waxa ka xiran wasaaradda agaasimihii guud ee hore ee wasaaradana uma xirna wasaaradana ma xirin cadaaladdu u xiran yahay waxa dambi baarisa socoto waxa kale warkii ugu soo gaaray dad kale oo xataa aan wasaaradda ka shaqeynin oo arintan ku lug lahaa inay kayska u xiran yihiin waxa warka la igu soo gaarsay ilaa 4 qof inay xiran yihiin uu kamid yahay agaasimihii guud ee hore wasaaradda iyo wiilkiisa ay kamid yihiin iyo 2 nin oo kale ninna inuu baxsaday dadka iminka xiran ee su'aalaha la weydiinayo waxa ku jira dad kale oo ku lug leh arrimahan hase ahaatee aanay wasaaradda ka tirsanayn iyadoo wasiirkuna sheegtay in agaasimaha xilka laga qaaday maalmo ka hor xarigiisa kadib markii ay soo istakeeyeen dad sheegay in ay lacag kaga qaateen si caruurtooda ay dalka dibadiisa ugu dhoofiyaan dadweynihii baa dacwooday marka cadaaladii waxay wadaa dambi baaris maadaama baaristii ay socoto haddii wax lagu helana cadaaladda de waxay qaadanaysaa jidkeedii haddii wax lagu waayana waa sidiisa laag waxaan u malayn waa la soo daynay laakiin wasaarad uma xirna annaga nooma xirna ayaga iyo shicibkii oo dacwadaas soo oogay oo cadaaladii iyo arrintaas ku saabsan tahay waa maqlay warka laakiin wasaaradda wax ay xirtay ma jiro taasaan rabaa maanta inaan idiin sheego Turkiga oo deeqihii waxbarasho ee ugu badnaa ay ka heshay dowladda Soomaaliya ayaa sanadkii hore waxbarasho loogu qaaday ardaydii ugu tirada badnayd iyadoo xilligaasi deeqaha markii ay socdeen wasaaradda waxbarashada lagu eedeeyay musuqmaasuq ka dhanaa habkii loo maareeyay deeqahaasi Zainab Abuukar VOA Muqdisho